kulanti wacan oo wanaagsan daawadaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona madaxtooyada Villa Soomaaliya oo xubno cusub oo guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ku yeelatay haddaba fargelintii ay ka digayeen midowga musharaxiinta oo banaanka timid iyo macluumaad ku saabsan ayaa daawan doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Kenya oo dalbatay in warqad loo qoro oo ku saabsan in dib loo soo celiyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xalay in markaas dib loo soo celi doono xiriirka diblomaasiyadda ka dhexeeya dowladda Kenya haddaba waan soo gudbin doonaa Kenya oo markaas xaaladdu ay ku xumaatay tabarteedana ogaatay sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo xilka qaadis ku sameeyay wasiirka xogeenkii wasaaradda amniga maamulkaas haddaba sababtu maxay tahay eedo iyo musuqmaasuq xoogan oo daasday ayuu sababsaday ayaa leeyahay sidoo kale waxaad daawan doontaan masaroob wuxuu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed oo war iyo wacaaltoon aan ka helin wiilashooda oo tababar ahaan loogu qaaday dalka Eritrea la sheegay inay ka dagaalameen dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kale ee caalamka fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saar gambalka afro una share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kuma tagay laagana inuu reebayaa aad baad u maasantihiin aan ku bilowno ila waraado lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegay in wali madaxtooyada Soomaaliya ay saameyn weyn ku leedahay saddex ka mid ah maamul goboleedyada dalka kuwaas oo markii horeba taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ahaa Villa Soomaaliya ayaa la sheegay inay gacanteeda ku soo magacawday inta badan xubnaha bedelka ku yimid ee guddida heerarka kala duwan ee maamul goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya in ilaa hadda madaxtooyada Soomaaliya ay fargelin ku hayso maamulka Galmudug oo ah maamulka kaliya ee aan ilaa soo magacaabin guddida doorashada kadib heshiiskii lagu gaaray Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka dalka qof xog ogaal ah ayaa waxa uu janalka ka ah wararka u sheegay in sababta aysan Galmudug u soo magacaabin ay tahay culays weyn oo ka saaran dhinaca Villa Soomaaliya waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay ku dhawaaqaan guddida doorashooyinka heerarkooda kala duwan hogaamiyaha mucaaradka ee wasiir Cabdiraxmaan Cashukuur ayaa dhawaan sheegay in taliyaha hay'adda Nisafaad Yaasiin Xaaji Daahir Abu Camaara uu markaas weli fargelin ku hayo arrimaha guddida doorashada Soomaaliya iyadoo si gaar ah lagu eedeeyay in dhinaciisa ka yimaadeen inta badan xubnaha maamulka Hirshabelle mucaaradka Soomaaliya ayaa qoys ka taagan waxaana dadaalkii ay u galeen in xubnaha ay ku xeeran Villa Soomaaliya hal bacaad lagu lisay ka dhigay wehelnaanta madax goboleedyada qaarkood ee Villa Soomaaliya ee weli taageeraha ay ka heesaan madaxda maamul goboleedyada taabacsan Villa Soomaaliya ayaa weli ka tanasulin inay dhageystaan madaxtooyada taas oo weeqday dadaalkii midowga musharaxiinta ay ku doonayeen in dhammaan meesha laga saaro xubnaha markaas ka tirsan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya iyo shaqaalaha dawladda iyo taageerayaasha sida gaarka ah ula dhacsan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaybihii hore ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saar gambalka afurna share garee saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kuma tagay laagana inuu reebaya aad baad u maasantihiin markaana dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warqad lagu soo bandhigay warbaahinta oo toos ugu socod dhigeeda dalka Kenya taas oo ay ugu dalbanayso xukuumadda Nairobi inay caadi ku soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay labada dal xilli ay bil ka hor dowladda federaalka ay ku dhawaaqday inay dib u soo celiso xiriirkaas sidoo kale sida aanu ogaanay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya warqadaas waxa dalbatay dowladda Kenya ku qanacsan qaabkii hore ee dowladda ay u shaacisay in loo soo celiyo xiriirka ay hore u jartay Kenya ayaa ku qasabtay dowladda federaalka inay qaado tallaabadan kadib markii ay diiday in dib loo furo safaaradaha labada dal oo albaabada loo laabay tan iyo markii ay Soomaaliya ku dhawaaqday in xiriirka u jartay Kenya warqadda ay soo saartay wasaaraddu ay ku saabsan soo celinta xiriirka labada dal waxay qayb ka tahay dalab ay hore u soo gudbisay dowladda Kenya oo ay ku xirtay furitaanka safaaradaha labada dal oo aan si rasmi ah u shaqeyn ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha la hadlay warbaahinta ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka warqadda ay dowladda Soomaaliya sida tooska ah ugu dirtay Kenya ayaa waxaa loo yaqaanaa note verbal waana marinka diblomaasiyadeed ee loo adeegsado markay dowladaha wada xiriirayaan Kenya ayaa kala hore dood ka keentay qaabka ay dowladda Soomaaliya u soo celisay xiriirka waana sababta keentay in dowladda Kenya ay ku qanci weydo ogeysiintii warbaahinta kaliya loo marsiyay ee xiriirka lagu soo celiyay isla markaana loo baahan yahay in Soomaaliya ay si toos ah warqadda ay kaga codsanayso ay u dirto dowladda Kenya wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa shir jaraa'id qabtay 6 bishii May 2022 ku qabtay Muqdisho kuna qanciyay ama kuna shaaciyay in dib loo soo celiyo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya oo ay markaas hor u jirtay dowladda
arrintan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa maalmo kadib markii ay Kenya islaama filaana ay dib ugu furtay dowladnimada Soomaaliya kuwaas oo horey ay u joojisay dowladda Kenya ilaa iyo muddo 3 bilood dhinaca kale saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu magacaabay guddi markaas ka soo talo bixiya waalidiinta cabashadooda ee ku aadan wiilasha ay dhaleen loo qaaday tababar dalka Eritrea isla markaana laga heen war iyo wacaal toona taasi ku qasabtay in wasaaraha uu magacaabo guddi wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u magacaabay cabashada waalidiin Soomaaliyeed oo carruurtooda 2 sano ka hor tababar loo qaaday dalka Eritrea wareegtu soo saaray Mr. Roble ayuu ku magacaabay guddigan oo baaris laba ku sameyn doona cabashada ay qabaan waalidiin fara badan oo sheegay in aysan war iyo wacaal aysan ka helin carruurtoodii oo tababarka loo qaaday dalka Eritrea guddigan ayaa ka kooban 5 xubnood waxaana gudoomiye looga dhigay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya xasan xuseen xaaji waxaana ku jira taliyaha ciidanka xoogga Generaal Waad Yuusuf Raagi dhalinyaradan tababarka loogu qaaday oo kumanaan gaaraya ayaa la sheegay in laga qayb galiyay dagaalka gobolka Tigray iyo waqooyiga Itoobiya qaar badan oo kamid ah lagu dilay dalkaas sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay xubnaha guddiga oo magacaabay waxaa sidoo kale kamid ah Danjire Cabdullaahi Axmed Jaamac oo ah safiirka Soomaaliya ee Itoobiya sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Generaal Muqtaar Xuseen Afra iyo sidoo kale Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah afhayeenka xukuumadda ee Soomaaliya qaybay dhexe janalkeena ka wararka ay daawanaysan saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtahay subscribe ku saar gambalka kana furo oo share gareey saaxiibadii markasta ay joogaan idinku markaas commentiga laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markana madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa wuxuu xilka qaadis ku sameeyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga ee maamulkaasi Hirshabelle madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulkaas wareegto oo xalay soo saaray madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga maamulkaasi Hirshabelle habeennimadii xalay ayuu xilka qaadis ku sameeyay mid kamid ah wasiir ku-xigeenkii maamulkaasi wareegto ka soo baxday xafiiska Cali Guudlaawe ayaa waxaa xilka loo qaaday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga Hirshabelle Xasan Maxamed Cali isagoo eedayn culus loo jeediyay wasiir Xasan Maxamed ayaa lagu eedeeyay inuu gudan waayay waajibaadkiisa shaqo ee loo igmaday ee wasaaradda amniga isla markaana arrintaas ay keentay in shaqada laga eriyo iyadoona aan la magacaabin mas'uulkii lagu bedel lahaa sidoo kale wareegtada uu soo saaray Cali Guudlaawe waxaa lagu cadeeyay in muhiim ay tahay in dib u habeen lagu sameeyo shaqada wasaaradda amniga dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle inkastoo uusan si rasmi ah uga hadlin wasiirkii xilka laga qaaday ee ku-xigeenka amniga wasaaraddaas inkastoo oo lagu eedeeyay in uu xaday lacag iyo sidoo kaleente maamo Soomaaliyeed oo deegaanada maamulkaas ku nooleed oo la sheegay in lacag ku badan $400 oo markaas kaga aruuriyay shacabka isla markaana uu sheegay in uu ay helayso hase yeeshee oo musuqmaasuq xoogan ku sameeyay musuqmaasuqa ayaana si weyn ugu jira deegaanada maamulka Hirshabelle iyadoo qaarkood aan xilalka laga qaadan maadaama qaraabo dhow ay leeyihiin madaxweynaha maamulkaas Cali Guudlaawe halka kuwa kale ee seefta qaadana la sheegay in ay qaraabo aysan isla markaana uu ku ilaashanayo sumcadiisa iyo markaas tan madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle uu ka hayo madaxweyne Cali Guudlaawe qaybihii gabagabada janalkeena ka wararka ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal hal maamin subscribe ka saarataan markana wararka ugu waaweyn ee arrimaha caalamka haddii aan eegno howlwadana caafimaad iyo bukaanno ayaa lagu diray duqeyn madaafiic oo la eegtay isbitaal ku yaala degmada lagu magacaabay waqooyiga dalka Aasiya xuduudka Turkiga 13 qofood ugu yaraan 2 kamid ah hay'adaha shaqaalaha caafimaad ayaa lagu diray duqeymahaas halka 27 kalena lagu dhaawacay hay'ad Mareykan oo taageero adeega caafimaad siisa xarun caafimaadka deegaanka mucaaradka ayaa sheegay in 2 gantaal la beegsaday isbitaalka Al-Shifa ee ku yaala degmada Afrin lagu magacaabo hay'adaas oo lagu magacaabo The Syrian American Medical Society ama loo soo gaabay SAMS waxa ay sheegtay in duqeymahaas lagu burburiyay qaybaha gargaarka degdega bukaanada iyo qolka ay haweenku ku umalaanay isbitaalka warbixinta hay'adda waxaa lagu xusay in duqeymahaas lagu dilay 13 qof oo 2 qof ay kamid ahaayeen shaqaalaha caafimaad iyo 2 darwal wada gaadiidka ambalaas ah ee isbitaalka laguna dhaawacay 27 qof halka 11 kalena ay ka tirsan shaqaalaha isbitaalka duqeeyay dhinaca kale ma kala cadahay jihada iyo sida rasmiga ah ay ugu dambeysay duqeymahaas ay ugu maadeen oo laba bartilmaameed sida xilli ay ciidanka dowladda Syria iyo maleeshiyaadka Kurdiska ee Turkiga taageerto loo soo dadgooyay waxiga degmada Afrin lagu magacaabo guud ahaan daawadayaal waana inta wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka kala socoteen janalkeena ka wararka fadlan halmaamina subscribe ku saartaan gambala kana furtaan oo share galeysaan saaxiibadii markasta joogan idinku markaas commentiga like inoo reebayo waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida markaas had iyo jeer aad ula socotaan muuqaalada quruxda badan aan soo gudbino ka qayb qaadada booliiska dalka aan ku sameynayno